كورن هدي فايل كوجو اخترت badan ee kamidka ku jira waa adiga kula muuqdo mid iska caadi ah waa configuration file uma muuqdo mid dib leh tani qof kasta uu garan karaa hackersku buuqma samaystaan waxayna files-koda ama malwareskoda u qariyaan habab xeeladaysan oo aan si fudud loo fahmi karin xitaa adigoo arkaya faylkii ay laga yaabo inaad u qaadan inuu malware yahay hadaba su'aashu waxay tahay sidee ay u sameeyaan taasi sidee lagu ogaan karaa fileska qarsoon muuqaalkeena maanta ay ku soo qaadanaynaa soo dhawaadaan yaro وتحنيني وبرو لنا قصي بروفيشنال وحين قيبتي نقص قادنا حلها لو أدكسدو سلو قريو سكريبت ذا يباك دوريسكا إنه أدكسينا بيلتين فيتشرسكا وأنا سودجي واحد لسا واحد جرا وضبا يميم تاين نرفعنو سينو قارنو هدف كاسي وربنو قضب كوكوادي وإن هدي يوسر كوسن فيل كاني أركي كارين معناه هيدو وإن فيل كاسي أوسن شيرين محمد تاني ولا شيرنا qofka isticmaalaya systemka ama computerkaasi waxa uu ka shakil lahaa fileska u muuqda oo aanu hore u arki jirin ama ku cusub balse haddii aad ka dhigto filekaaga mid aan la arki karin macnaheedu waa in filekaasi uusan jirin okay hadaba markaynu joogno linaga seen folder ama file lagu gargino mid aan muuqanayn oo qarsoon waxaanu kaliya filekaasi ama folderkaasi ku bilaabeynaa dot tusaale ahaan haddaynu samayno file cusub waxaan qoraynaa echo file qarsoon waxaanu ku save garaynaa dot file qarsoon kadibna aynu siino permissionkii execute-ka ama in la rankareyn karo si aan hadhow u xidhi karno karontaabkii haddaynu iminka si caadi ah u dhahno list oo rabnaynu aragno fileska ku jira folderkan wax file ah inoo muuqanayo balse waxaan ognahay in file qarsooni uu ku jiro halkaani sidaas oo kale hackersku waxay fileskoda u bixiyaan magacyo aan laga shakin karin xitaa haddii la soo qabto sida sync file oo kale cache backup iyo waxyaabahaas la midka ah digoo badan adeegsada magacyo muuqanaya in filekani uu leeyahay systemku oo aanu lahayn wax userku shaqo ku leeyahay yani markastoo magaca filekaasi u ekaado mid aan laga shakin karin oo markastoo yaraanaysa chaniska uu userkaasi ku dhili garay karo filekaasi okay waxa soo kale kamid ah xeeladaha lagu qariyo malwareska in la geeyo folders ama directories aan badanaa aad loo soo booqan tusaale ahaan goorma ay kugu dambeysay inaad soo gasho system 32ga computerkaga Windows laga yaabo in waqti hore kugu dambeysay laakiin downloadska ama desktopka maalin kasta waa joogtaa sidaas oo kale ay folderska iyo fileska lagu qarin karaa meelo aan badanaa booqan waxaanu samayn karnaa in abuurno folder qarsoon oo ku dhex samayno directory aan si joogto ah loo booqan kadibna folderka qarsoon waxaan ku dhex ridi karnaa files malware ah oo iyaguna qarsoon waxaan soo kala xasuusnaataa in marar badan aynu adeegsanayno crontab si aan u rangarayno fileskan xilli cayiman oo aynu dooranno taasi waxay ka dhigaysaa inaynan u baahnayn in markasta si manual ah u rangarayno fileskaasi hagaag intaasi haddaynu kaga nimaadno sida loo qarin karo file iyo folder ayaynu wax ka ogaano si u sahli karto fileska qarsoon waxaad kaliya samayn kartaa inaad qortid command-kan ah lsla oo ku ogolaanaya inaad aragto fileka qarsoon waxaad sidoo kale adeegsan kartaa command-kan si aad u aragto fileska iska dhigaya kuwa systemku leeyahay balse aan ahayn muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay iminka waa taqaanaa sida loo qarin karo file loogu xidhi karo timer kuwa ogolaanaya rangarayso waqtiga rabto iyo sida loo siiyo permissionka rangaraynta si aan systemku kugu qabsan la wadaag barnaamijkeenan asxaabtaada mahadsanid